guddiga doorashada madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa muddo ku siman 14 cisho dib uga dhigay doorashada madaxweynaha koonfur galbeed iyo waqtigii loogu talagalay sida uu sheegayo xoghayaha guddiga doorashada koonfur galbeed Soomaaliya Nuur Ibraahim Isxaaq على نبينا محمد ورصحافdeed baydhabo taariikhdu maanta bisha 1 December 2018 guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya guddiga qabanqaabashada doorashada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed magacaabay 17 November waxa ay horay u mudeeyeen isla markaana cilaamiyeen in 5 December 2018 la qabto doorashada haddaba kadib lambar 1 markii uu guddiga qiimeeyay howlaha baaxadda leh ee horyaala waqtiga ay haystaan iyo shaqooyinka qabyada ah kuwaasi oo u baahan in muddo cayiman gudaheeda lagu qabto 2 markii uu guddiga ogaaday hay'adaha caalamiga iyo marti sharafta loogu talagalay inay goobjoog ka ahaadaan doorashada in aysan ku wada imaan karin waqtiga la cayimay doorashada 3 ayadoo aysan weli dhameystirmin qaar ka mid ah qalabkii doorashada lagu qaban lahaa 4 markii uu dib u dhac ku yimid aysan qabsoomin qaybo ka mid ah tababaradii loo qaban lahaa guddiga iyo tababaradii loo qaban lahaa dhammaan xubnaha golaha taasi oo u iftiimin lahayd qaabkii nidaamka doorashada iyo codbixinta sidaa daraaddeed waxa uu guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya uu garwaaqsaday inay lagama maarmaan tahay in waqtiga doorashada dhici lahayd ee 5 December dib looga dhigo isla markaana doorashada ay dhacdo 19 December 2018 si loo xaqiijiyo ka qaybgal dhameystiran inta ka horeysana uu guddiga dardargelinayo fulinta iyo qabashada howlaha dhiman ee guddiga horyaalo guddiga wuxuu raali gelinayaa isla markaana uu cudur daarayaa murashaxiintii isdiiwaangelisay kadib murashaxiintii isdiiwaangelisay dib u dhacaan dhanka farsamada ee ku yimid doorashada kadib oo doorashada dib u dhacaasi oo aan ahayn mid ku yimid dadaal la'aan iyo mas'uuliyad darro guddiga xaggiisa balse ku yimid daruufo lama filaan ah oo laga fursan waayey habraacii loo dejiyay doorashada wuxuu ahaanaa sidii hore maalinta iyo saacadaha ay dhacayaan dhageysiga qodbooyinka murashaxiinta dib ayaa laga cilaamin doonaa doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa tiro dhowr jeer dib uga dhacday waqtigii loogu talagalay inkastoo ay su'aalo iska weydiinayaan shacabka koonfur galbeed oo ka dhursugaya doorashada Cabdiqaadir Maxamed Galer Media Baydhabo